Hello waxaan idin sheegayaa Soomaaliya waan idin ogaaday dad aan waxba ahayn baatiin nothing because disrespectful baatihiin qofka bilaadanka dadkiisa waa necabtiin asaga hadduu guul soo gaarana waa jeceshiin inaad ku faantaan inaad waliba si xaasidnimo ugu faantaan hadda nin baa t-shirt soo gashtay adadhe dukaanka ku arkay t-shirtiga maxaa ku qoran wuxuu rabaa inuu ku qoro gold and the queen marka laakiin what he wrote God young ilaahi yara good young uu rabay lagu qoro funaanada laakiin markaas u fiirsato the t-shirt saying the God young ilaahi yara waxaa ku yiri funaanadaada wad ilaahi yara bay leedahay maxaa ka wadaa ku iraanay oh no she's saying good young وأنت فنادة كسرت ناكت مرة حاكة كلها نكتك عدوك سوي حتى كسرت ويا بأنيقة بحاكة اللي من كان دجال حول أنا الهين ضد أنا الهين جنسيات أنا الهين صومالي اللي أنا قفك أبوه هيليان لكن واحد كوري ضدكي قفك بالآدم كده قيمين يس ضدكي سجات شيء سم أما ضدكي عد الأبيوز جرينا يا أهيل ضدكي صنّال وقلت قفك magaca dadkiisa in lagu ixtiraamo ugu tago wax loogu qabto uga ma tagay in gaariyaan marba funaanad ku qorto oo marba aad chokin ad raise iyo background abuse tigray way iyo afar way iyo gaariyaan bay ahayd iyo roman bay ahayd waxa inaad meesha soo keento ma ahayn Soomaaliya idinka dhan waa idin ogaanay waxa waayo all of you chok waxa waayo wadaneedna leheena ku raaxaysanaysaan oo aad u ballaaran markaas aad kibirteen xoolaha iyo macdanta iyo diamond-kana waa soo gurateen adduunka ka iibsataan guryo millions of dollars ba meel ka gadateen cars dhaadheer ba iibsateen hadda waxa keentan dad inta ay seedad u dirtaa inaad t-shirt ilaahiga yara aad u gelisaan oo aflagaadeysaan islaantii booliska ahayd ana dhashay idinku aflagaadeynaa waxa u qabantaa iska daa